عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال meel kasta dunida daafiyada ka joogtaan waa mar kale iyo clip cusub bartaan naga daawanaysan waa bartaan YouTube ka kulleena hoda fashion waa walaashin hodana idin leh soo dhawaada dhamaantiin hadda channelkayga ka cusub tahay waxaan ka codsanayaa si tixgelin ku dhaanto waxaan ka codsanayaa inaad subscribe noo saartid kambalelka furtideed si aad nooga mid noqotid u noqoto qofka ugu horeeya daawada aad baad ugu mahadsan tahay like-tana nagu dhiirigelin waxay noo tahay dhiirigelin waxaan ku dareemaynaa inaad clipkan aad ka hesheen aad baad ugu mahadsantihiin ku casuum oo share gareeya si ay ka mid noqdaan hodan fashion aad baad ugu mahadsantihiin inta kadib caaw mawduuc baan inoo wada mawduuc muxuu yahay caaw mawduuca inoo wada waa Faarax Murtiile oo aan wada garanayno ninkii majaajileystaha mar waxaan ku uri ahaa gabayaaga nooc walba dhinac walba u tuuri jiray oo maanta afka furtay balaynu daawano yuu ka hadlayaa yuu ka cabanaya yuu wuxuu sheegayaa yuu la doodayaa bal aynu ku socono aynu wada daawano waxa uu halkan ka leeyahay barakaatu dhamaan ummadda Soomaaliyeed salaan sharfiga gudoonta haadi aad baan salaamaya yar iyo weyn carool iyo ciroole waan wada salaamaya maanta halkan waxaan soo fariistay in aan wax saxo inaan wax saxo dadna aan la xisaabtamo marka koobaad waxaan cod dheer waxaan dirayaa TV-yada mulkiilayaasha TV-yada Soomaaliyeed idaacadaha mulkiilayaasha idaacadaha Soomaaliyeed baan u dirayaa cod dheer codka dheer aan dirayaa waxa weeyaan waxa la xoganaya dulmi aad u ballaaran oo laga galay dadka artiska ee Soomaaliyeed sida gabayaaga fanaaniinta heesaaga laga galay baa hoganaya in la saxo ayaan doonayaa arrintan in la saxan doonayaa waxaan la hadlayaa qurux badan tahay in la saxa horta waa wax loo baahan yahay oo muhiim ah waxa jira dad badan oo fanaaniin caladeeda qof kasto oo fanaani adduun waxba kama dhaxlo qof kasto majaajileysti magac kaliya ayuu ka dhaxlaa taasina waxa weeyaan burburka iyo wadan la'aanta ayaa inoo keentay taas ayaa inoo keentay aanu maskaxdeeda qiyaasay waayo qof kasto oo fanaan amba majaajileysta wadan kasta wuu dhowrtay majaajileystiisa ama fanaankiisa waanu dhiirigeliyaa waanu hadduu xanuustana uu garab istaagaa laakiin inaga fanaaniinteena hadday xanuustaan lama garab istaago haddii majaajileystu xanuusto lama garab istaago hadduu wax noqdo waxaan ku uri isaga u taalaa hadduu dhinto isagoo magac dunida ku lahaa oo magac ku lahaa xataa dad caruurtiisa iyo dadkiisa dib looma eego oo dib laguma noqdo rayigaasi runtii Faarax Murtiile waa runtiisa oo dadkeena caanka ah dadkeena un bay wax ku yihiin laakiin dawladda wax u qabataa ma jirto shacabkuna marka uu qofku xanuunsado un bay ku hambaaburaan balse laakiin ma lagama dhaxlo fan oo ay majaajileysta ma lagama dhaxlo ee magac baa laga dhaxlaa balaynu ku socono mulkiilayaasha ummadda Soomaaliyeed ee TV-da leh iyo mulkiilayaasha idaacadaha leh tusaale ahaan waxaa jirtay waddankii markii uu dhisnaa ilaa 60kii wixii ka horreeyay qofkii hees sameeya ama gabay sameeya ama garaar sameeya ama film matala marka ay idaacadda marto ayaa lacag la siin jiray markastoo la soo dayay lacag la siin jiray saasi ahaan jirtay markii dambe niman waaweyn fanaaniina alla yarxamo sooraya ka bacma looga sheekeeyey markii dambe dowladdii gacaanku ay qabstay meesha waxa ahaa wasiirka warfaafinta Ismaaciil Cali Korono waxa sameeyay qorshe cusub ah in fanaaniinta kaydkii hore laga wada iibsado all of tonolo yiri wili waxa la intee soo badlay hebel gabay hebel film hebel lacagtii soo loo riyaday qoon kaybsan imka laga bilaabo waxa qaranka ummadda Soomaaliyeed imka laga bilaabo waxa tahay shaqaalaha waa tahay shaqaale ayaa tahay kulli baa lagu siinayaa shaqaalaha tahay wixii aad سمعتان رواية في الماء إذا كأي أسكال تاساسه وحكى عن تجي وأنا أعلم هم بجينيا
تجي فنان ما نحكي إنسان فنان تقول شوي أيها أنا بوعد ليدي أنا صادق ليدي هي صار لي الحين بلقيس اللي عندي وي فرح إنسان يا واحد حنقول عينتن وي مرتي ما مرتي ها ما إذا عندي مرتي ها يس ويكون فرح حنقول محا أنا هو مرتا محا ويستبوي واحد ما يمرك أنا مرتو العقد بان نسيا مركز تي مرتو هي صار لي سود أيو وحاول يعني العقد بان نسيا وأنا هو مرتا والنفط إلى بك قلت بيت إيو قلبي سيو قوية ليدي إيو وحي أردن خاتم بالله في المدينة ما أنا بقول عن دولة خاتم بالله بس كتاعي روبوتي وحاشية مانك يمسك هذا يا runtii wuxuu ka hadlayaa walaalaheen Djibouti waa dal jira ma sha Allah runtii waa dad sida Soomaalida oo kale aanu dhaqmin marka aan taa ku leeyahay wuxuu yiri ina fanaanada ayaa ilaacad laga soo daayay heesteedii waxa ay ku faraxday soo deynta laga soo daayay waayo waxa ay ku leedahay lacag sida Soomaaliyana waa kan inoo sheegay inaynu lahayn qof kasta oo fanaan ama qof kasta oo wax soo daayay oo majaajilista ma noqdo ama film soo daayay fikrad la yimaada wala gacan qaban jiray wana laga iibsan jiray laakiin hadda waqtigan ma jirto laakiin hadda TV haday tahay isaga kaliya shaqaysanaya haday tahay in dawladda kaliya wada telefishinadii lama cashuur lagama qaadayo yani la oranayo dadkan majaajilistayaasha maxaa wuxuu loo hayaa ama dadkan numberka kule dadka wax u soo deynaya ama wax tabiyayaashay dadka u soo tabinaya yani waxyaabaha qosolka waxyaabaha kaydka ah yani ay dadkeen u baahan tahay bulshadeen u baahan tahay ee la isku madadaaliyo maadaama oo ay tahay waxaan laga meermahayn maxaynu dadkeena u haynaa dawladdu kala ma xisaabtanto iyaguna maba isa saaraan xooga laakiin anigu waxaan oran karaa dadku ayaga taa isdhigay waxay taa isku dhigeen haday qof kasta oo wax ka duubayaan ama wax TV-giisa haday oran lahaayeen maxaad noo haysaa oo maxaad imsa jeer baad isticmaalaysaa waxayagii ama muuqayagii waxayagii runtii dadkeen waxbay noqon lahaayeen laakiin ma jirto taas waan ka xumaa runtii aad baan uga xumahay waayo waxa weeyaan dadkaygii waa dadka aynu ku mar walba majaajiladooda ku qosla ee naga qosliya waa dadka filmaantooda inaga qosliya waa dadka yani waqtigooda qiimaha waqtiga inta uu leeyahay waynu garanaynaa waqtigooda waa dadka inoo hura bal aynu ku socono dadka uu la xisaabtamayo ayaan geyn doonaa insha Allah kilibku aad buu dheeryahay ma wada daawan karo waxay warkii hore oo soo dhaaf halkan imika maanta London waa la ismaagmaagay dad badan arkay hadlayay waxaan ka midanaantiyan walaal ilfaadmiina ka midahay waxaan ka midahay lakaaj ways waxaan ka midahay ilaahan xarago waxaan ka midahay boosbaas abukar mahdi ay ka hadlayay waxyaas ka hadlayay abukar mahdi walaalkay weeyaan waa la soo wada shaqeynay waan sharfayaa waan karaamaynayaa waa walaalkay wey laakiin waa la xisaabtamaya maradu habli ka soo oogayay oo ina waliba ay soo oogayso haddaan loo arimiyaa la ooy habliheenii walaalihina ahay hooyooyinka inay anigu iska aamusnaa abukar mahdi walaalkay weeyaan laakiin kula xisaabtamaya haddii madaxweynuhu uu qaatamo moosh malaakana somaa haddii qof waxaa layidhi muxuu leeyahay cabdilla xasan ninkii loo burhaan qabay hadduu bayda jari waayo birtiisu haa jirtee inaan la rabin baa sheegaa in haddii xil loo dhigto oo la aamino oo la istaba taago oo xilkiisa ka soo bixi waayo dee waxay orad laga tabalaya muxuu haddana ninkii isna ku amada qofkaad wax ku tahay wax laysagama dhigo qofkaad nin ku tahay nin laysagama dhigo qofkaad geesi ku tahay geesi lagama dhigo haddii jaan iminka uu ciidama hogaaminayo oo ciidankii uu isagu geesi saga dhigo raggii garabkiisa ah ee xooggiisa ah ee xabadda la ridayay ee la halgamayay hadduu isu abaturiyo meanaa cawaandiyo khatara miyay socdaysaa ciddaa lagaga tegaya walaalkay abukar mahdi anigoo oo jecel anigoo karaaminaya anigoo sharfaya waxaan leeyahay walaalo waxa weeyaan waa lagu xisaabtamaya anigu film baa sameeyey
finan kala haabalayada anaale kala haabalaya waa 5 iyo 50 halqadood ka badan dhammanaya halqad waliba waxaa filmidii baad daawatay waa arki doontaa anaale maxay lagu haystaa waa fikrtii mee aduu youtube kaagu jira maxaad iga siisa maabaad baad igu haysaa maaja baad igu haysaa intellectual property baa layaha ismail anaa iskale 2 sannadood lacag soo gashay ina xisaabi soomaaliya ay kama tahay madax ina xisaabidaasaynu ku joojinaynaa maadaama uu kilibkani aada u dheeryahay oo aanan dhamaysan karin nasiib daro waxaa aada runtii u xun oo aan aada uga murugoonaya waxay tahay nin isku sheegaya nin oo haddana gabar Soomaaliyeed intuu marka meesha ay dharka ku bixinaysay kamarad ku xidho yaa bal hadda eeg hadda marka intuu kamarad ku xidho marka uu arkay inay ka tagayaan ama si xumaa dadkii ka tambatay uu arkay in laga sii socdo ku reekaataynaya ama ku bahdilaya inan eele waxaan ka duubay video maadaama oo dharka barta iskaga bixinaysa waayo waan wada ognahay marka riwaayad la jalayo hal dhar lama xidhnaado wala kala bedelaya dharkii barta dharkii iskaga bedelaysan kamarad kugu xidhay ilaahay baan ku dhaarin nolosha taala maxay tahay ama maxay tahay waxa ay hablihiina qiimaha ay leeyihiin maxay tahay habluhu qiimaha ay lahaayeen lagu soo celiyo ninkan Abuubakar Mahdiina waxaan leeyahay ama aan halkan fariin uga diraya waxay tahay hooyo way kula dhalatay ta aad dhashay kulli waa gabadh ta aad qabtaa waa gabadh hablaha ixtiraam iyo maamuus iyo sharaf iyo qadarin bay mudan yihiin habluhu maaha hablo lagu tiqtiiqsado ama hablo lagu tunto habluhu waa hooyo habluhu markasta hadday yartay hadday weyntay waa hooyo haddii aanay kula dhalan waa hooyo hablaha nidaamkoodii iyo qadarintoodii iyo qiimahay lahaayeen waxaan ka oran lahaa waa laaga fadhiya maadaama oo maanta adduunka kugu soo yaraaday oo qof kasta wadar iyo waaxidkeeba waalan qof kasta oo kugu jiray wuu hadlaya cod buu soo duubaya inta social media weyn wada arkayna wadar iyo waaxid waxa waalan waaxidka waalan marka waxaan ka oran lahaa hablahan ha xumaynin runtii waxa aad ii gilgilay ama aad aan uga murugooday waxay tahay nin iskalaba war waa nin waa nin waxa doontaan isku sameeyay Faarax Murtuule soo kaasma maanta dad waxa doontaan isku sameeysan waxaan ku ri maxkamadda adduunka ugu sarreeyay sila higsataan war waa nin baad u tihiin xoolihiisana dal uma laha oo qasab qofna wixiisa qofna qasab wixiisa laguma haysto qofna fikradiisa lama isticmaali karo ilaa uu heer raali kaaga la noqdo marka dadka ha isku dirin ilaahayna bibiyaha ma jecla ilaahayna ma jecla qofka xaq darada yaqaan annaguna xaqa ayaanu sheegaynaa waxaan ku leenahay waa qaldan tahay ee dadka ka fadhiiso oo dadka nabadgeli ayaan ku leeyahay waxaan ku leeyahay dadka ka fadhiiso oo nabadgeli umada ilaahay in aad isku durto ama aad kala qoqobtaa wax micna ah ma ku sameynayso laakiin qiyaamaha ayay micno weyn ku fadhidaa ma fahantay inta adduunida nooshahay iska timishley laakiin maanta aad dhimatid wax qof kasta wixii adduunka uu ku sameeyay waa wuxuu la godgalayo taana ogsoono ha ilaabintaas aad baan idin salaamaya asxaabtada qiimaha iyo qadarinta mudan intii fikirkayga iyo raygayga soo horjeeda ama wax kale oo aragtay waxaan idin leeyahay waa fikirkaygii iyo aragtidayda baan ka dhiibtay waayo qofna ma jecla wiil ama gabadh qofku doonaba ha ahaado qofna ma jecla hooyo ama inan waxaan jecelahay qiimaha iyo qadarinta ay leedahay in la siiyo laakiin hablaheeni haddii maanta aynu inagu hadli weyno maanta tii ay dhibtu gaadhay haddii laga hadli waayo oo loo hadli waayo dee maxaad sugaysaa beri toolaada lagu cunayaa marka waxaan leeyahay in aynu ka dhiidhino ama aynu waxyaabahaas oo kale ka filcelinaa aad bay muhiim u tahay idinkuna fikirkiinu waa idin mubaax anigu fikirkayga baan ka dhiibtay waxaan leeyahay wixii qalad ii arkay ama qalad ii fahmay iga raali ahaada aad baan idin salaamayaa waxaan ka codsanayaa channelkayga inaad subscribe saartid aad naga mid noqotid aad baad ugu mahadsan tahay laytana ha naga hilmaamin ee nagu dhiirigeli aad baad ugu mahadsantihiin waxaan idin leeyahay waa walaashin hodan oo idin leh kolkaad nolol habooyo